sarqaabi wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda gobolada ka imaaday bandhig fiican oo ku sameeyay kooxda kubadda cagta ugu jeclaa kubadda cagta football markii la waa Kisiima kooxdii fursadda maanta ay siisay football ba inaan dhex ordo aan dhex irsado kooxdii aan ugu jeclaa waa kooxdaasiyada oo maanta inaan ka tagin Soomaaliyeed aan siiyo ma jecleen kubadda waa wajiye badan tahay Ronaldo ba Real Madrid uu ka tagay qof walba kooxdu ka tagay kala laakiin ana always Junior jeclahay Junior waa koox ugu weyn oo maanta aan soo gaar xamar la jaan qaado ciyaartooyda dalka Soomaaliyeed waxay qabaan aan la qabo in national team amadan waa kooxda dhabarka soo garaacatay oo soo gurba oo iyo dhabar adeegtay oo maanta fursada qaaliga siisay oo xamarna i bartay in maanta ciyaaryahan professional xamar ku soo Junior oo jeclaana in marwalba sii joogo oo waxay qabtaan aan la qabo laakiin haddii waqtigii Junior uu soo baabao aniga kamaad ahaan kooxdaas aan doonaa ma dhigi karo laakiin kooxdii calafkeyga noqoto aan isdhigi karo Soomaaliya ku haboon oo maahan dooqiis ay tahay aan tagi kara wallahi aniga waxaan ku leeyahay qareen waxaan ka tirsanay Junior marwalba Junior aan doornaa haddaan ka taga xataa oo ka tagay ana isleeyahay ma dhahay koox kale aan tagi kara ana always Junior ahay Junior waxaan ku dooranay ma jirto laakiin haddii waqtigii Junior soo baabao waa jeclaan lahaa kooxaha dalka midii aniga dooqey noqoto ayadana mahad ay leedahay mahad ahaan oo u baahannahay oo waa dooqeena oo member weyn oo noqon kara as leeyahay laakiin ma dhigi karo maanta kooxdaas jecel laakiin Junior ka mid ah Junior jeclaan doona hadiisan waqtiga iyo waayahana kala geyn ana waxaan jeclahay inaan dhiirigeliyo ciyaartooyda ku nool gobolka Jubbada Hoose khaasatan Kismaayo ciyaartooydaas waxaan leeyahay marka horeysan saan oo kale fariin aan dhiibayo waa dhiirigeliyo waxaan jeclaan lahaa in asaagooda wax la qaybsadaan asaagooda xamar joogo mise dalalka adduunka joogo in wax la qaybsadaan ciyaartooyda gobolada sanadkan waxaan isdhigi karaa under 20 hadda gobol waxaan ku soconay gobolada dadka ka imaaday 5 qof ilaa 6 qof waa dadkii ka mid ahaa dadkii tayada lahaa oo under 20 oo wax badan ka soo sameeyay xaggaas sarqaabi wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda gobolada ka imaaday bandhig fiican oo ku sameeyay waa ninkii ugu furfurnaa oo tartanka soconaya ka mid ah Muxudiin saas oo kale asagana Muxudiin oo difaac dhexe ah saas oo kale ciyaartooydii ugu dhiiri badnaa oo under 20 ka mid ah anigana sidoo kale xaafid lambarka 10aad ee kooxda Elman iyo xulka qaranka daayirta Soomaaliya under 20 sidoo kale gobolka ku imaaday waxay ku tusaysaa in fursadihii gobolka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxayna tusayaan in gobol iyo magaalo iyo baadiyo midka joogo inuu u furan yahay under 20 iyo hadday noqoto senior iyo hadday noqoto xul qaban nooc walba ha ahaado oo football ah in fursad la siin karo qof walba banaanka ma uusan leheenin qof xamar joogo qof beledweyne joogo qof baydhabo joogo qof garowe joogo in soo qaranka leheen uu Soomaali dhanka dhaxeeyo iyo nin walba footballka hami kala oo sameynayo wuxuu rabo kubadda cagta oo aqoonteeda wato oo kubadii oo aqoonteeda u leeyahay macallin dooqiis inuu noqon karo waxaan leeyahay ciyaartooyda ku nool gobolka Jubbada Hoose in hurdada ay ka kacaan in asaagooda wax la qaybsadaan ciyaartooyda gobolada asaagiina ka imaaday waa kana waxay imaanayaan waxay fursad u heleen in under 20 birin waxa laga yaabaa in senior si helaan oo qaranka Soomaaliya waaweyn ay ka mid noqdaan marka waxaan leeyahay waqtigiina isku day inaad ka faa'iidaystaan kubadda cagta waxa la ciyaarayo in yar kooban